madaarka cigaal international airport ee caasimadda Hargeysa waxa ka soo degay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda agaasimaha maxadka tababarka shaqaalaha dawladda iyo ku-xigeenkiisa oo ka soo laabtay socdaal shaqo oo dalka Kenya ay ugu maqnaayeen Professor Maxamed Mixilla Boqorre gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa si qoto dheer u tibaaxay shirka ay kaga qayb galeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo faa'iidada ugu jirta Soomaaliland muddo 4 maalmood habeen iyo dharaar bashir kula weel banka Nairobi ayaan kula lahayn waxaanu ka doodaynaa ka hadlaynaa waxa arrinku waxa sida hore loogu mariyo shaqaalaha dawladda iyo xafiisyada dawladda ayaan rabnay in hore loo mariyo kullay go'aan fiican baan soo kala qaadanay heshiisyada waan soo kala saxinay memoorida understanding barnaamijkii kii ugu horeeyay baan soo saxinay waan isla soo qaadanay sidii shaqaalaha dalkeena hore loogu marin lahaa sidii xafiisyada dawladda hore loogu marin lahaa sidii magaranaysaa dhismaha shaqaalaheena loo dhisi lahaa sidii aqoontooda iyo xirfadooda iyo maxbal loo kobcin lahaa waan isla soo qaadanay waana barnaamijkaas agreementkii ugu horeeyay waan soo kala saxinay waxa siyaasadaha la sameeynaya wasaaradaha iyo degdeg hawlaha looga qabanaya siyaasadihii wasaaradaha lagu dhaqay iyo siyaasadihii dawladda shaqaalaha dawladda lagu dhaqay sida hawlgabyada sida muxuu ahaayay qoritaanka shaqaalaha siyaasad baan u dejinaynaa sida muxuu ahaayay misaharka gareerka wada ee waxbaan ka bedelinaa A1 A2 A3 A4 waxa soo dhan bay nala qabanayaan hawlaha soo dhan shaqaalaheenu meel kasta joogan bar record baan gelinaynaa record loo qof kasta halka ka soo boodo magacaagu Ridwaan marka lagu baaro halka iyo wasaaradaadii ka soo booday Ridwaan baa lagu dhifanayaa magacaagu saddexan wasaaradda taayir nambarka ka jirta dalka soo baxay wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka Soomaaliland Kaysar Cabdulaahi Maxamed ayaa ka warramay ujeedada socdaalkooda Kenya ay ku tageen waxa uu daaranaa waxa ilaahay mahadii ah inaan dalkayga hooyo ku soo nabad qab noqonay annagoo muddo 4 maalmood ku maqnayn caasimadda dalkaasi Kenya Nairobi halkaas oo aan kulamo ballaaran la yeelanay iyo wada hadallo bangiga adduunka kuwaas oo si fiican ugu soo dhamaaday wuxuu ahaa runtii kulamo aad wanaagsan ayaan la qaadanay bangiga adduunka kuwaas oo muxuu ahaa runtii ay ka soo bixi doonaan maxaa natiijooyin wanaagsan oo lagu faray Soomaaliland ay dalalka caalamka ugu kaalmeyn lahaayeen sidii loo horumarin lahaa kartida aqoonta iyo heerarka waxbarasho ee guud ahaan shaqaalaha Soomaaliland gaar ahaan shaqaalaha dawladda Ridwaan Caydid Ismaaciil Akiid Saciid Maxamed Daahir Baajiyo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland garoonka Cigaal International Airport